maxaa uu qabsoomay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu hayay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. maxaa sababay shahaado la'aanta ku dhacday ardada wax ka barata dugsiyada maamul goboleedka Puntland? يعني أنا أرضي فنفارة ولبيه تبشر وحشة بريني حقنا أولها نعي إن شهادة يدبوق للدليو ولو الدولارات أي مرح يشلق لان maxaa ka jira inay kulmeen madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi? warar soo baxay ayaa sheegaya inuu socdo qabanqaabada kulan ay qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waryaara kalamaanay kulankii labada madaxweyne dhex maray waxaan ku riyooday Muuse Biixi oo hees qaadaya wuxuuna yidhi dhulaan ceel lahayn baan dhaankii u rarayaa adna dhool guyaad iyo dhibicdii ma hayside dhacar baad ku noosha anna waxaan ku riyooday madaxweyne Farmaajo ku jawaabay dhankaan anigu kaa xigo dharka lama yaqaanee dhugi baanu xidhannaa adna dhagorta xoolaha mara waa ka dhigataa buuraha dhexdooda iyo dhagax baan ku seexdaa adna waxay ma dhaantida dhulka hoos magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ku kulmay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Radio Soomaaliya. Waxaan ku soo kordhin doonaa kanaalka barnaamij cusub oo la magac baxay Faallada Isbuuca. annagoo ugu hadli doono waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee isbuucaasi dhacay. intaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku soo biir kanaalka haddaadan ku soo biirin si aad ula socoto barnaamijyo waxtar leh.